Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Galab wanaagsan. Halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha. Waxaan galabta barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ku dhow saxiixeedii labaad ee xilli ciyaareedkan iyo Lionel Messi oo saxiix doon heshiis cusub iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe iyo like sar lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. aynu ku bilaabnay laacibka dunida ee Lionel Messi ayaa soo gabagabeeyay wararka xanta ahaa ee hareeyay mustaqbalkiisa naadiga Barcelona isagoo oo aqbalay heshiis cusub oo ay u soo bandhigtay naadigiisa Barcelona. 33 jirkan reer Argentina ayaa la isla dhaxmarayay inuu doonayo inuu isaga hayaamo garoonka Camp Nou ee kooxdiisa Barcelona oo uu ku qaatay dhammaan waayihiisa ciyaareed, balse jariirada reer Spain ee Cadena Cope ayaa shaacisay in mucjisada kubadda cagta uu ugu dambeyn aqbalay heshiis cusub oo ay maamulka cusub ee Barcelona miiska u soo saareen, isaga oo qalinka dul dhigi doona heshiis 2 sano ah iyada oo la horumarin doono kharashaadka uu naadiga ka helo sanadkii. Jariiradan ayaa inta raacisay in waxyaabo yaryar ay ka harsan yihiin dhamaystirka heshiiskani, laakiin 33 jirka reer Argentina ayaa saxiixi doona heshiiska cusub ee naadiga reer Catalonia, waxaana xiddigan uu kula guuleystay kooxda Barcelona ilaa iyo 34 koobood. Wararkan ayaa ka dhigan in Messi uu bedelayo go'aankiisii 12 bilood ka hor gilgilay naadiga reer Spain, isaga oo si cad u sheegay in rabitaankiisa uu yahay inuu ka hayaamo naadiga Blaugrana kadib guuldaradii 8-2 ee ka soo gaartay naadiga reer Jarmal ee Bayern Munich. warkan ayaa muusig dhagaha ku dhacay u noqday kooxda kubadda cagta Barcelona iyo laacibkooda cusub ee Sergio Aguero oo dhawaan si bilaash ah ugu biiray naadiga reer Spain. labadan laacib ayaa ah saaxiibo ilaa yaraantoodii, waxaana mar la weydiiyay Aguero inuu sanadka dambe ka garab ciyaari doono Lionel Messi oo xiddigan sheegay inuu ku rajo weyn yahay arrintaasi isla markaana uu jeclaan lahaa in ay garoon wada galaan mucjisada kubadda cagta. madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta ayaa isbuucii hore xaqiijiyay in ay meel wacan marayaan wadahadal heshiis cusub ay u soo bandhigayaan laacibkooda Messi oo ay la fureen wakiiladiisa, waxa uuna intaasi raaciyay in xaaladda Messi aysan ahayn wax ku xiran dhaqaale. dhinaca kalena isla Spain kooxda xilli ciyaareedkan loo caleemo saaray hanashada horyaalka La Liga ee Atletico Madrid ayaa ku rajo weyn soo xirigelinta laacibka kooxda Juventus ee Paulo Dybala. kusoo laabashada tababare Massimiliano Allegri ee kooxda marwada duqda ah ayaa wararku sheegayeen in xiddiga reer Argentina ay ku dhiirigelin doonto joogida garoonka Allianz ee kooxda reer Talyaani, waxaana warar soo baxay isbuucan ay tilmaamayaan in xiddiga reer Argentina uu door weyn ku yeelan doono kooxda hagaaga soo socda. xiddigan ayaa 4 sano oo wacan ku hoos qaatay tababare Allegri, inkastoo sanadkii u dambeeyay uu u badnaa kursiga kaadka ee kooxda isaga oo booskiisa u lumiyay xiddigaha Mandzukic iyo Bernardeschi. hase ahaatee warar la isla dhaxmarayo oo sheegaya in Cristiano Ronaldo uu isaga hayaami doono naadiga reer Talyaani xilli ciyaareedkan ama kan xiga ayaa wararka kooxda laga helaya ay sheegayaan in marwada duqda ah ay doonayso in xiddiga reer Argentina ay hormuud uga dhigto kooxdeeda cusub. wargeyska Tutto Sport ayaa sheegaya in Atletico Madrid ay si hoose wada hadal ugula jirto xiddiga reer Argentina. ku guuleystayaasha La Liga ayaa qorshahoodu yahay in saxiixa Dybala ay hadiyad uga dhigaan macalinka kooxda reer Spain ee Diego Simeone. haddii wada hadallada kooxda marwada duqda ah ay kula jirto xiddiga reer Argentina uu mari dhal noqon waayo, Juventus ayaa diyaar u ah inay iibiso laacibkeeda. kooxda Atletico Madrid ayaa dhigeeda Juventus u soo bandhigi doonta 50 milyan oo euro oo ay miisan tahay in ay ku filnaan doonto in kooxda marwada duqda ay fasaxdo xiddigii hore ee Palermo. dhanka kalena kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in dhawaantan ay ku dhawaaqi doonto saxiixa weeraryahanka da'da yar ee kooxda Red Bull Salzburg ee Patson Daka. wargeyska Spain ka soo baxa ee Todofekis ayaa tilmaamaya in maalmaha soo socda ay kooxda reer England ay soo bandhigi doonto xiddiga da'da yar ee reer Zambia isaga oo noqon doona saxiixoodii labaad ee xilli ciyaareedkan. Patson Daka ayaa qabtay indhaha kooxo badan oo Yurub ka dhisan oo ay ka mid yihiin Manchester City, Manchester United, Arsenal, West Ham iyo naadiga RB Leipzig oo ay mataan yihiin kooxdiisa haatan. xiddiga reer Zambia ayaa xilli ciyaareed wacan ku qaatay sanadkan horyaalka Australia isaga oo shabaqa ku hubsaday 27 gool. Liverpool ayaa rajeynaysa in xiddigan uu raaco wadadii uu maray Erling Haaland, kaas oo qaab ciyaareed wacan soo bandhigay markii uu ku biiray kooxda Borussia Dortmund, waxaana labada ciyaaryahan ay u wada dheeleen kooxda reer Australia.
labada kooxood ee Liverpool iyo Red Bull Salzburg ayaa la tilmaamayaa in qaybihii u dambeeyay heshiiska ay ka wada hadlayaan, waxaana xiddigan Liverpool ay soo bandhigi doontaa maalmaha inagu soo aadaneen. dhanka kalena kooxda Manchester City ayaa la wareegtay hogaanka tartanka loogu jiro saxiixa laacibka xulka England iyo kooxda Aston Villa ee Jack Grealish, iyagoo kala wareegay kooxda dariskeeda ah ee Manchester United sida ay ku waramayaan wararka soo baxaya Ingiriiska. wargeyska Metro oo soo xiganaya The Athletic ayaa warinaya in kooxda Sky Blue ay ku dhowdahay Jack Grealish, iyagoo doonaya in kooxdooda ay ku soo daraan xilli ciyaareedkan tayo cusub kadib wajixumadii ka soo gaartay finalka Champions League. isla warbixintan ayaa lagu qoray in xiddigan uu qalbigiisa bedelay isagoo diyaar u ah inuu ku biiro naadiga Manchester City halka xilli ciyaareedkii hore oo dhan la xiriirinayay dhinaca guduudan ee magaalada Manchester. kooxda Manchester City ayaa diyaar u ah inay bixiso qiimaha Aston Villa ay ku doonayso laacibkeeda, halka Manchester United ay ka cagajiideysay inay bixiso qarashaadkaasi. xiddigan ayaa doonaya inuu koob ku guuleysto, waana sababta ayaa la leeyahay uu haatan u doorbidayo inuu ka hoos ciyaaro tababare Pep Guardiola. kooxda Barcelona ayaa ku dhawaaqtay inay la soo wareegtay xiddiga garabka midig ee daafaca uga ciyaara kooxda Real Betis ee Emerson. labada kooxood ayaa si wada jir ah horay ula soo wareegay laacibkan, waxaana Barcelona ay qiimo 9 milyan kula heshiisay dhigeeda reer Spain si laacibkan ay toos ula wareegto. warar laga helay Catalonia ayaa tilmaamaya in Barcelona ay iibin karto xiddigan isla xilli ciyaareedkan iyagoo raba qiimo dhan ilaa 20 milyan oo euro, waxaana la xiriiriyay xiddiga reer Brazil naadiga ka dhisan London ee Arsenal. kooxda Manchester United waxa ay soo cusboonaysiisay doonistooda laacibka kooxda Atletico Madrid iyo xulka England Trippier. naadiga ka dhashay Premier League ayaa doonaysa in laacibkan uu booska midig ee daafaca kula dagaalamo Aaron Wan-Bissaka oo xilli ciyaareed isku milan ku qaatay garoonka Old Trafford. ugu dambeyntiina kooxda Wolfsburg ee wadanka Jarmalka ayaa macalinkeeda cusub u magacaabay laacibkii hore ee xulka Holland Van Bommel. barnaamijkeeni galabtana intaas ayuu ku egyahay. halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha, waa channel cusub oo ugu talagalay in idinkugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta caalamka. dhageysta ama daawada haddii ay ku qanciyeen warbixinadeena, fadlan subscribe iyo like kanaalka. wixii taliyo tusaale ahna inuu ugu soo gudbiyo commentiga. mahadsanidin.